السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر على channel إيجي فادنا أصحابي مكسر شوكتين وذا السلامية كسر نقد ونكسن وحيسله أوجيسيس فضلا راح نكون شيء فيديو جن مرته وحيابا نسكحذا قاعد كرن قف كست مقال كمرته مقال كده مقالان مرته إن نحن كوريسا بان كشكينا بليز فضلا هدي عرور أكواك شوغان أما أدو تحي قف شل حسن بليز فيديو عسي دعوان حتى ما كوسي شيء واي وحيابا كشكينا قلبك وما في عنا فيديو جن نوع أنا كلام مرته وهراكم مشكين مركا بليز فضلا وكوسي شيء حتى بعد كشرتا هذا اللي واي هذا مارت فيديو سي داون سيادي كله أنا أنت وديش شيء تكلم كحشني أنت أنا بلعبين كلا دي شيء حويان فيديو هروتين دي شيء تتكلم بحيران الجنبلة الكفرت مارت هذا ضد من قصب تحيوان كل شيء أتسبسكرايب واللي صارن حتى صاري كرتا الجنبلة الكفرة واي فيديو كستا عن حتى لقى بلعبان سوق لينو قرال ما نكون حقرننا qofka qoraalka arka ee videoga maaragtay ka dhax arka ee xagga hoose ku soo qora maalinta ugu horeysa 24 hours ugu horeeya qofkan ka dooranayna $50 buu qofkaasi ku guuleysanaya marka videogii hore waa khalad baa u fahanteen oo malinaya iga raan noqdaan maartay anigu si fiican aan idin faafin waxa weeyaan anigu kelmad aan leeyahay maaha sheekada kuma saabsana kelmad afkayga ka soo baxaya maaha waa qoraal waxba ku qoran password oo kale kelmad baa videoga qoraal ah kasoo dhaxbaxay videoga dhexdiisa marka si fiican videoga u daawada mid kastoo noqon kara kan uu noqon kara video kala soo wado noqon kara waa any video aan soo dhigo ban qoraal soo dhaxgelinaya marka videoga waa inaad daawatid anigu kelmada afka ka leeyahay maaha dhageysta kelmad maaha afka ka leeyahay waxa weeyaan qoraal videoga ku dhex jira weeyaan waxa aad ku dhex aragtay ee ka soo dhaxbaxaya qoraalka xagga hoose ugu soo qor videoga hada aynu bilaabo marka videogani maanta wuxuu ku saabsan yahay arrin maartay la yaab leh oo aan hore uga sheekeen una maqal igu horeysa hadda igu horeysa sheekadan waxa ka dhacday ruushka ka dhacday ruushka meesha Russia waxa weeyaan ku saabsan tahay waxa nin yanaagis qaba telefonkoodu baa dibadda laga helay marka waxyaabihii laga dhaxelay adduunka dhan maaragtay bay gaadhay sheekadaasi 2017 kii ahayd waxa ka soo wareegtay 3 sano ka soo wareegtay marka sheekadaas aan ka sheekeynaya marka horta sheeko quickly waan ka sheekeynaya labada qof is qaba markii hore say isla kulmeen iyo noloshoodu waxay ahayd marka ninkan Dimitri baa la yiraahdaa gabadhana Natalia marka Dimitri iyo Natalia waa laba qof oo maartay isqabay bay ahaayeen isaguna wuxuu ahaa 35 jir markii la qabanay man sheegay 2017 kii iyaduna wax weeyaan da'deedu waxay ahayd 43 jir bay ahayd marka 8 sano kala weeyeen sanadan waxay ku sheegay wax weeyaan muhiimadda waxay si maartay xagga dambe u fahantaan sheekadiisa marka Dimitri waan ku horeysiinaya marka hore sheekadiisa waxa weeyaan wiil wuxuu ahaa markuu dhashay waxa dhalay hooyo aabe maaragtay gabigooduba 24 hours drug iyo alcohol 24 hours maaragtay labadooduba ay jirkooda sun ku jiray waxaasi cabi jiray marka ilmo yar wuxuu ahaa gabigiisaba dayac maaragtay ku dhex dhashayba labadii hooyo aabe looma ogolaan ilmaha yar ma korsan marka asagu marba meel maaragtay buu ku soo koray silic buu ku soo koray markii dambana laba qof is qaba nin yanaagis qaba waa yiri anaga korsanayna marka iyaga korsaday laakiin hooyadii markaa asaga hooyadii markaa u noqotay iyo ninkeedii markii dambe iyadii ba xanuunsatay oo kasar baa ku dhacay markaa asaga hooyadii soo korinaysa marka asagoo wili qaan gaadhin oo wili teenager ah buu hadana wuxuu luusgareeyay hooyadii dhashay ma hooyadii soo korsatay buu luusgareeyay markii dhimatay kansarka ku dhacay aabihii markaa kan dee noqon lahaa aabihii show waxa marnaa hooyadii ba markaa gabadhana markaa iska korsanaysa iska jecleed laakiin aabihii hakuu maartay isaguna nolosha maartay ilaalin lahaa dabadda u soo tuuray wiilkii oo markaa 16 jir meelaha gaadhin buu dabadda u tuuray kii yaraa markaa wuxuu bilaabay maartay dhaqan xumo like inuu xado anyway fahmaysaan in ma yaras ciyaal suuq iska noqday oo aan maartay wax fiican ku soo kordhinayn ummadda marka noloshiisa halkaas ku bilaabantay isagoo marba maartay meel tagay oo silca ku nool buu markii dambe wuxuu bartay Natalia iyo nin markaa nin baa qabayada ninkii iyo iyadaba waxay yiraahdeen kaala anaga nala deg anaga maartay aan isla noolaan markay ma oran kartid maartay way korsadeen laakiin waa qofkan weyn oo teenager weeyaan markaa laakiin wili muuqaan gaadhay 18 wili maaha markuu maartay Natalia iyo ninkeeda la soo degayo wili markaa maartay 18 jir markaa muu gaadhay muuqaan gaadhin anyway iyagii buu la degay iyagii ba maartay gurigooda u fasaxayday inuu la noolaado markii dambe
inankii markuu weynaaday uu 18 jir gaaray 20 jir maaha gaaray Natalia bay inankii yaraa ku qabatay waaba isguursadeenba marka ninka kale kale way kala tageen baa umaleynaya laakiin inankii yaraa inan maaha way 8 sano ka weyn tahay oo waxaan leeyahay xasuusta maartay 8 sanaga inay tahay muhiimada waayo markuu yada la maartay la soo degayo ay oranayaan maartay waan ku caawinaynaa isagu wili waa caruur oo kale like 18 jir uu ka yar yahay muuqaan gaadhin basically sida sharciyada maartay meelaha dalalkan joogno laakiin iyadu markaa waa qof weyn markuu weynaaday waa tan guursatay halkiiba iyagu markaa waxay noqdeen family ma noqdeen nin iyo naag bay noqdeen marka caruur ismay dhalin markay isguursadeen noloshooda halkaas ka bilaabatay isaguna marka marba meel ka soo shaqeyn jiray iyaduna waxay ahayd nurse bay iyaduna ahayd shaqadaas maartay haysay marka waxa loo diray xero military ah dayda maartay diyaaradaha military-ga kaxaysa lagu tababaro meeshaas iyaduna ay maartay nurse-ka ahayd oo ay daweyn jirtay dadka maartay dhalinyarada meesha degan marka xeradaas iyagana la dejiyay xeradaas normally maaha maartay guri caadi rasmi ku noqdo waxa weeyaan waa meesha loogu talagalay ardayda inta la tababarayo inay degaan marka ay dadka shaqaalahana maartay meeshaas iyaguna degan yihiin xerada military bay weligeed marka ayagu labadooda deganayeen markii dambe waxa 2017kii waxa dhacday iyagoo sida macaamiisha marka u degan ilaa iyo maalintii isguursadeen oo marka 2017kii Dimitri inuu yahay 35 jir iyaduna ay tahay 43 jir baa waxa dhacday meesha maartay ay degan yihiin xerada military-ga dhexdeeda iyadoo laamiga la hagaajinayo meesha maartay shaqo ku socto waxa laga helay telefoon baa laga helay meesha marka telefoonkii baa nimankii soo qaadeen nimankii meesha ka shaqeynayay telefoonkii bay fureen waxay arkeen wax aan adduunka maaragtay la yaabisid bay arkeen telefoonkii bay fureen sawiro aan caadi ahayn bay arkeen waxay ka dhax arkeen sawiro uu ninkan Dimitri subhanallah like markan hadda caadi baa noqday laakiin markan akhriyay aan ama daawani qaar video gabigayga لعب ما ترى لها like مرة وجوسي مرة وانشجعني مرة ونحي I don't know نكن صور كان ماشى أو تلفون كسوق لي تلفون كيس لقد حركة يصورك كلامه وحويان قف نن مدحيسي يناق مدحيدي يدات وشرشراي بوسكوس صوري سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يس ما مدحيدي يسوق اسكو صوريا وحي بيكون حركين anyway مركب ولا عررين dadki way naxeen waxay geeyeen meeshii police-ka geeyeen waxay radeen waxaan babaara qofkan soo helay anyway arrintii maartay waxa la wareegtay police-ka isla markiiba telefoonka maartay ilaa hadda xilliga la joogo qof kasta maartay telefoonka magaca baa ku qoran telefoonka iska soo qaadan kartid marka isla markiiba waa la helay ninka address-kiisii iyo magaciisii wixii dhan baa la helay toos baa meesha loogu tagay waa la qabtay waxa la yiri bal waxa noo sheeg waxa sawiradan ku jira waa maxay leeyahay sawiro fake uma eke waa dad xawayaan waa bin aadan la shajaray bad isku sawirto waa maxay anyway markii hore muuqiran markii ugu horeysay wuxuu yiri no ano maalinka lugeynayaan waxaan baan arkay madaxa meesha iska yaala ruushka maarto waxyaabahaas kale waxay wad ka filin kartaa waa dad waaqac weeyaan waa waalan yihiin wuxuu yiri ma meel qashaan oo marayaan madaxa kan samad xitaa kor u soo qaaday ma isku sawiray waxaas marka hore ku yiri anyway suurtagal weeday gurigiis baa la tagay gurigii marka la tagay waxa loogu tagay waxa taanta ii sheegay waxaan taan leeyahay maartay watan ugu la yaabka badan gurigii waxa loogu tagay qasacado iyo bahalo maartay dhalooyin waaweyn oo normally dadka cuntada ay kor xidhaan hadii maartay waxa khamiirinayaan oo kale dhalooyinka waaweyn oo ay qaar gacmo ku jiraan nooc jarla dad la jarjaray ku dhex jiraan bay dadkii meeshii kabadhada ka heleen waa gacan iyo lug iyo meel qayb baa ku jirta meelaha kabadhada ku jirta waxayna arkeen qasacado kale hilib la kariyay hilibkiina hilib ay karsadeen anyway videoga waxa hadda easy ka sheekanay xawayaan ilaa 2 cisho maartay sheekadan maskaxdeed ku wareegisay like caadi ma ahayn like waxaan isir markaan aan yara kala dego maartay uga sheekayo waayo maskaxdeeda like way gali kara weeyday way image-kii aan sawiranaya inkastoo aan sawirada waan diiday in arko way sawiraha ku jira aniga ma soo bandhigay meeshan laakiin waan diiday waxa la yiri sawiraha jira marka waxaan no inta ay way kaato sawirkayga anigu aan maskaxda maartay ka sameeyay laakiin midkii runta ama arkayo anyway waxa la helay sawiro oo iyagoo marka cuntadii dadkii kariyay ilaa waxa la helay sawir oo 1999kii waxa way ka soo wareegtay 20 sano ka hor
baa show bay waxaan ba bilaabeenba marka sawir baa laga hayaa oo qof inta madaxiisii kasoo karkariyeen ama isagoo inta fruit hareeraha dhigdhigeen bay miiska saareen markaas isagoo isku sawireen marka waxa la ogaaday inay sheekadan hadda bilaabin ilaa ay maalintii isqabeen intay markay isguursadeenba inay waxa sameyn jireen marka halkiiba maxay ahayd labadiiba de wala qabtay markaas 2017kii marka la qabanayo marka de waxay isqabeen la 18 sano waa iska qiyaasay laakiin hadda de 20 sano ka soo wareegtay marka labadiiba waa la wareystay waxa la yiri way waxa la arkay dad badan oo maartay madaxyadooda kala duwan yahay qof qura marka ma dilin wax badan baa la arkay oo jid kala maartay kala duwan markaas dad badan baa la soo bandhigay oo la yiri qofkan dad badan maartay magaalada ay degan yihiin la waayay raadkooda la waayay show labadani waxay sameyn jireen online maartay dating meesha maartay dadka la isla kulmo yiraahdo maartay guurdoon baan ahay ama qof baan doonayaan barto ama qof baan doonayaan shaqeysto marka online bay dadka maartay ay ka baran jireen marka si ku oran jireen ha wala balami jireen iyaduna xageeda nin bay la balami jirtay isaguna maartay qof dumar la balami jiray dadka saasay maartay ay ku heli jireen waxana la tiriyay oo iyagu qirteen in ilaa 30 qof maartay inay qasheen hadhowtana karsadeen ama cuneen ta kasi daran ay sheegaya oo maartay aan maskaxdeeda waa taan leeyahay oh my goodness waxa la yiri qoftani si maartay ay lacag dheeraad u hesho dadka waxay ku oran jirtay waxaan sameeyay hilib baan sameeyay oo wax la yiraahdo maartay pie cadaanka inta badan cuno pie waa nacba dunka waxaan basic waxaan maxaa wax keega oo kale saan sheega oo xaga hoose ku dhex jirto hilib maartay hilib la karkariyay kaasi sameyn jirtay oo ay markaa ka eeg maartay ay u qiiqeyn jirtay dadka meesha degan xasuusta meesha ay degan yihiin waa xirada military weeyaan oo dadka ciyaalka maartay lagu tababaro sida ay duulimaad maartay xaga ay pilot u bartaan dadka duuliyaha noqdaan marka kuwaas baa la yiri bay mar cuntada u sameyn jirtay oo ay keeni jirto oo ay u qiiqeyn jirtay si maartay ay lacag yar ku hesho ta kale dukaanada hareeraha kafeega restaurantada meelahaas bay oran jirtay migiimansa waxaan soo diyaariyay waxaan iga iibsaday marka nin baa yiri anigu inta badan waxay soo sameysay kama iibsan jirin weligeena kama iibsan waayo muuqaalkeeda dhan baan ka wasuusi jiray marka ninkaas I don't know waxba tusay ninka oo malinaya marka waxa la ogaaday qoftani inay show ninkan de ninkii naagtaas qaba marka naagtu inay cunto sameyn jirtay oo ay dadka u qeybin jirtay marka sheekadan oo dhan markii la ogaaday waxaana marka isla markaana la helay gabadhii ugu dambeysay ayaguna qirteen waxa ahayd ay marka de fresh ka ahayd oo marka xumle maalmo gudihii ay inta dileen ay qasheen waxay ahayd gabadh marka waxay tageen meel restaurant tageen marka naagtu way maseertay waxay tiri gabadhii cuntada maartay u keenaysay ba waxay tiri naagtana say kula qosashaa say kula hadashaa show markay guriga tageen ninkii bay ku tiri Natalia Dimitri waxay ku tiri orada naagtin garanaysa restaurant ka shaqeynaysa soo hel dil madaxeeda iikeen yes saasi ku tiri khasab bay kaga dhigtay iyada soo dirtay iyada ku khasabtay wuxuu yiri saasi sameysay iyaduna haabay tiri way qaratay waxay tiri ha ana u diray ana ay soo dil anyway gabadha intuu soo dilay buu meedkeeda u keenay meedkii markay keeneen bay kala jarjarteen hadhowto waa kuwan qasacadaha kala galgalinaya sidaasay labadooda maartay ku shaqeysan jireen marka sheekadaas 2017kii waxa la yiri marka adduunka oo dhan maartay ku faafaaday Ruushka waxay sameeyeen markay maxkamadda geeyeen labada qof markay xukumayeen waxay ka dhigeen secret wax maartay si sira oo kala maartay baa loo xukumay oo lama doonin maartay in la sii ogaado waayo waxa ka shifmay dadkii meeshii xerada militariga ahayd baa la yiri sidee u dhacdaa labadan qof ilaa wax 20 sano ku dhow sidee intaas oo qof maartay inta u dilaan oo loo ogaan waayay oo marka dadkii meesha mas'uulka ahaa ma garanaysaa militariga nimankii maartay xidigaha la saari jiray oo ma ismaha dadka military ku jira waa dad sareeya maartay ba waxay qaran shaqadii ka tagay oo ka carareen oo ka fadhiisteen anyway meesha isku waalatay way ceeboobeen dadkaas waayo waxa la yiri yigima macaamaartay shock ku dhacay waayo waxay xasuusteen inay meesha wax ka cuneen oo iyaduna meesha maartay marmar cunto ka sameyn jirtay dadka u qiimeyn jirtay marka gabigoodu waxay xasuusteen inay cuntadeeda mar cuneen iska badaa inay wixii ogaayeen iska daa cuntadeeda bay cuneen marka waxa la yiri isku waasheen gabigoodu way u qaadin waayeen markii dambe sheekada waa la xiray gooni baa laga dhigay marka waxyaabo badan bay maartay Ruushku ay qariyeen oo ay doonayeen sheekada maartay dibadda u soo baxdo waayo
dee saydi sheegay waa loo qaadan waayay sababta maaragtay ay u ogaan waayeen anyway labadii qof way qirteen ilaa 3 qof inay dileen qasheen cuneen sanadkii hore baa labadaba waxa lagu xukumay Natalia waxa lagu xukumay 10 sano isagana waxa lagu xukumay 12 sano waa lagu xukumay oo inay jeel ku jiraan inkastoo haddana maaragtay ay 3 qof dileen dawladdu waxay saan u fahmay waxay heshay ku cadeysay inay dileen maaragtay gabadhan ugu dambeysay marka ay restaurant maaragtay ka shaqeynaysa naagtiisu u dirtay baa lagu cadeeyay sadarteed baa 10 sano wax looga dhigay isagana 12 sano la xiray markaas sanadkii hore baa jeelka la geliyay iyadoo marka hadda sanad bay xiran tahay isaguna sanad markaas oo ku jira oo bishii labaad maaragtay soo dhaafnay uu isaguna dhintay macaan baa dilay isaga marka isagu wuxuu ku jiray jeelka sanad quru ku jiray iyada weli nool oo jeelka ku jirta marka labadaasi waxayna oranaynaa waa dad qaliin bay ahaan dadka cun jireen dadka laba qof waxay ahaayeen aniga taariikhda waxaan kale weligay ma soo maray waa markii ugu horeysay aan waxaan kale maqlayo aan marka waxaan siri because meesha aan ka arkay maaragtay marka hore waxaan siri waa been laakiin markii dambe markaan arkay in maaragtay news meela maaragtay BBC iyo kale meelahaas ay ka hadlayaan maaragtay no tani maaragtay been maaha waa run wax kasta wada arkaysaa maamada Soomaalida sheegaysa bade maartay aduu nin noolo maxaa maartay aragti ku laaban oo tiyo kale wakaas sheekadaas oo kaas ahab maartay idan qalbiga maartay ida jabin wakaas maanta intaas qisadaha kaas ku dhamaatay maanta kaas inoo eg tahay insha Allah mid kale idin soo wada waxaan rajeynayaa inaad maartay in الفيديو قداون هدد مارتي قلبي جلعسن طيب بليز هلوت aniga don't blame me aniga hay eedeen please aniga maartay la wixii ugu qaatay inaan maartay inaan arrintan iga degto wallahi waan martideeda ku soo noqdo kale hada xunaysan maartay iga raal noqdo taasaan ilaaway hada xunaysan maartay videoga iska damsid ama mar kale u soo noqotid taasaan ilaaway marka aan ku qori doona xagga sare insha Allah marka asxaabi waxaan leeyahay kulan dambe salaam calaykum